siminaar diimeed loogu talagalay in lagu gaasa bixiyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi inay fahmaan diinta Islaamka iyo dhaqanka suuban ay xambaarsan tahay oo bishii Ramadaan ka soconayay Masjidul Hidaayah ee xaafadda Islii ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay Andalus Hotel ee magaalada Nairobi ugu horeyn waxaa hadallo u badan mahadnaq iyo baraarujin dhinaca dhalinyarada ah ku furay dowladda Sheekh Maxamed Cabdi Umal dadka ka faa'iideystay oo da'yarta ayagana waxaan ilaahay u weydiinayaa wixii ay maqleen oo ay faa'iideysteen in ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku anfaco waafajiyo in ay noloshooda iyo dhaqankooda saameyn inuu ku yeesho wax ka bedelo wixii ay dhegaysteen oo maqleen runtii waana muhiimadda ugu weyn oo shayga markaad maqasho shayguna shay manafacaad leh uu yahay inaad qaadato oo aada dhaqan geliso waa maqsuudka weyn camalku waa muhiimadda diinteennana labadaa qodob baa asaas u ah alcilmu annaafic waalcamalu asaalix sidoo kale waxaa isaguna qisooyin badan oo qur-aanku kaga warramayo da'yarta halkaa ka sheegay Sheekh Shibil da'yartu shariicadeennu iyo diinteennu mudnaan gaaray siisay waxaadna ka dareemi kartaan aayaadka qur-aanka ah iyo axaadiidta nabiga sala allahu alayh alihi wasalam baad ka dareemi kartaan marka dhowr tusaalaan midba ka soo qaadayaayo markii qisadii asxaabulkahfi laga sheekeynayey ilaahay wuxuu warkooda kusoo ururiyey innahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum huda waa dad da'yara oo aanu hanuuninay iyaguna rabbigu rumeeyey annagana aan hanuun ugu darnay ugu dambayntiina waxaa hadal muxaadaro iyo lecture isugu jira ku soo gabagabeeyey Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul isagoona sheegay in isbedelada caalamka ka socda ay haatan majaraha u hayaan dhalinyaro tababar baa rabaa inaad qaataan oo diinta ku tababaraad ku qaataan mas'uuliyad baa rabaa inaad qaadaan adduunka hadda wax isbedelaad ka socda nabiyullaahi maxamed ninkii ugu horreeyay rumeeyay dhalinyaro ahaa Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu Ali bin Abi Talib ayuu ahaa radiyallahu anhu nimankii dhibka badnaa ee islaamka taariikhda dad fiiriso muwaajahada la galayna dhalinyaro wada haay kulligood xataa fi yawmina hada waxa caalamka ka socda thawratu shabaab bal sama waxa hadda Masar ka dhacay Tunisia ka dhacay Libya ka dhacay Suuriya hadda ka socda thawratu shabaab jidka taageero dhiigooda huraya naftooda huraya la isbedel baan rabnaa oo le waan ka daalay dictataradan adoonnimo ma ogolin oo dhiigooda maalin walba daadanayo meel walba la taageer ashacbu yuriidu isqaat an-nidaam shacbu yuriidu isqaat ar-ra'iis masalada ugu daran ee marka taqwiimka lagu sameynayo dhalinyarada dhibaatada u geysatay waxa weeye ruux kula da'a inuu khadka ka saaro peer pressure intuu ku saaro inuu oo marka asagii aad ku dayato marka saadafteed waxaa halkaa ka ratimaysa inaad saaxiibo wanaagsan iyo dad wanaagsan aad ku xidhnaato waxaa ka ratimaysa inaad adigu noqoto midka wax bedelaya in adiga lagu bedelin saaxiib wanaagsan inaad yeelato waa laga maran qur-aanku ka hadlay saaxiibtinimada xataa dadka waaweyn inuu qofku dadku saaxiibka ka dhiganayo iyo dadku la socdo iyo dadku la tashanayo inay dad akhyaara ay yihiin oo aan ahayn dad khadka kaa saaraya nabiyullaahi maxamed sal alla alay wasalam uu inoo sheegay wuxuu yidhi almaru calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalil qofku wuxuu leeyahay diinta saaxiibki hebel ma taqaaba saaxiibki ii sheeg soomaalida kuma maadaba ma hebel bahaa yuu saaxiib leeyahay shimbirba shimbirkiisu la duulaa marka waxaa la doonayaa dadka aada saaxiibka ka dhiganayso eed la sheekaysanayso eed la tashanayso inaad iska jeegarayso barnaamijyada khayriga oo noocan oo kale ah ayaa culimaa u diinka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi waxay ballan qaadeen inay joogteynayaan haddii ay helaan dhalinyaro ka faa'iideysanaysa Ali Ismaaciil Ali Home Cable TV Nairobi.